wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warbixintii maalinlaha ahayd ee xogta coronavirus waxay ku xaqiijisay in 24 saac la soo dhaafay guud ahaanba dalka laga diiwaangeliyay 66 xaaladood oo cusub oo la xiriirto caabuqa faafa ee COVID-19 waxaana wasaaradda warbixinteeda lagu sheegay in 27 qof ay ka bogsoodeen cudurka halka 2 ruux oo kalena ay u geeriyoodeen. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abiykar Nuur ayaa cadeysay in 55 ka mid ah bukaanada cudurka laga helay maanta ay yihiin rag halka 11 kalena ay yihiin haween. 46 ka mid ah bukaanada cusub ee cudurka laga helay waxaa laga diiwaangeliyay deegaanada Somaliland. Koonfur Galbeed ayaa iyaduna laga diiwaangeliyay 2 kiis oo cusub. Jubbaland 1 kiis oo cusub ayaa laga diiwaangeliyay. Gobolka Banaadir 5 kiis oo cusub ayaa laga diiwaangeliyay halka Puntland laga diiwaangeliyay 12 kiis oo cusub. tirada xaaladaha kala duwan ee COVID-19 ee guud ahaanba dalka laga diiwaangeliyay ayaa gaartay 2579 ruux waxaana bogsooday guud ahaan tiro gaaraysa 559 ruux halka 87 ruuxna loo diiwaangeliyay inay u geeriyoodeen sababo la xiriiro caabuqa faafa ee coronavirus. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Marwo Fawziya Abiykar Nuur ayaa ugu baaqday muwaadiniinta Soomaaliyeed guud ahaan inay qaataan talooyinka caafimaad iyo wacyigelinta looga digayo khatarta cudurka faafa ee COVID-19 iyo sidoo kale inay doorkooda ku aadan ka qaataan dadaalada looga hortagayo xakamaynta fayraska coronavirus.